iyada oo eegaysa godka weyn ee ka dhaladay garabka Gong Ting, Yasmin Kay waxay si degdeg ah ugu qaylisay inuu helo daryeel caafimaad. Waxay ka codsatay inuu joojiyo imtixaanka oo ay ka soo bixiyaan goobta, iyadoo uga digtay in wuxushku uusan ahayn mid uu ka hortagi karo. Gong Ting si adag wuu u khilaafay, isagoo urursanayay magac dab ah oo xooggan oo gacantiisa ku jira, wuxuuna gebi ahaanba ka dooday fikradda ah inuu isdhiibo. Jen wuxuu daawanayay isagoo naxsan markii Gong Ting uu si toos ah gacantiisa gubaysa ugu riixay laabtiisa dhiigduubka ah, isagoo adeegsanaya kulka dabkiisa si uu u daaweeyo nabarkiisa daran. Isagoo ka kor maray xanuunka baan, Gong Ting wuxuu si hubaal ah u dhawaaqay in dagaalku uusan dhammaanayn ilaa mid ka mid ah uu dhasho. Gong Ting wuxuu u booday hawada sare, wuxuuna seeftiisa gubaysa u soo droosay dhanka cayayaanka si uu sii wado weerarkiisa dhanka kale. Banaanka godka godoonsan, Silas Lin, oo ah hogaamiyaha King Squad ee Imperial Guild, ayaa darsay albaabkii la waayay. Wuxuu si degan u caddaysay in dhacdadan ay muujinayso in makhluuq aad u caqli badan uu ka dhex shaqaynayo gudaha, kan oo ula jootay aadanaha ka hor inta uusan dabin ku qabin. Agaasime Gong ayaa galay argagax, isagoo si quus ah u weydiinaya haddii ay jirto nooc kasta oo loogu qasbi karo in albaabku dib u soo muuqdo maadaama ardaydu ay weli ku dhex jiraan. Silas wuxuu si qabow u sheegay inay jirto oo keliya hubaal hal bixideed, qof gudaha ku jira waa inuu raadiyo oo uu dilo maamulaha rasmiga ah ee godka. Isagoo raadinaya rajo yar, agaasime Gong wuxuu isku dayay inuu sababeeyo xaaladda. Wuxuu muujiyey in maadaama godka Drunk uu leeyahay maamule arrank ah, imtixaan qaadayaasha iyo ardayda godoonsan ay weli leeyihiin fursad ay ku dilaan oo ay ku turaan. Silas wuxuu si degdeg ah u burburiyey rajaydiisa. Wuxuu kashifay in qiimaynta Drunk ee inta badan ay tahay keliya wajibeen ah oo uu sameeyey maamulaha si uu u kariyo dabeecadda dhabta ah ee godka. Isagoo isku xontactin garaynaya tilmaamaha, Silas wuxuu darsay in godkan gaarka ah uu yahay kan ka dambeeya la naagta dhowaan ee kormeerayaasha. Wuxuu si adag ugu sheegay Gong in dabinka ay horteeda taagan yihiin uu dhab ahaan yahay god halis badan oo prank ah. Dhanka kale, gudaha godka, wuxushkii cayayaanka ahaa wuxuu ku qaaday weerar aan kala joogsi lahayn isagoo adeegsanaya gacantiisa seefta ah. Gong Ting wuxuu u istaagay dhulkiisa isagoo leexinayay weerarada culus, seeftiisa dhalaalaysa. Wuxuu si degdeg ah u noqday si uu uga fowdo weerar dhabar ah. Xilli wuxushku uu kor u qaaday gacantiisa weerar baan darteed, Gong Ting wuxuu u booday hawada. Weerarkii wuxushka waa uu fashilmay, oo gacantiisii sharqanta lahayd waxay si mool ah ugu dhex dhacday dhulka iyadoo ku dhex fadhiisatay. Isagoo ka faa'iidaysanaya fursadda, Gong Ting wuxuu dhawaaqay inuu wuxushka dabin ku qabtay. Dhaqdhaqaaq madow iyo awood badan oo seeftiisa ah wuxuu ka jaray madaxa makhluuqa. Madaxii la jaray wuxuu ku dhex roolad garoobay dhulka dhagaxa ah xilli kooxdii kale ay soo ururtay. Yasmin waxay daawatay iyadoo la yaaban, iyadoo aaminsan in Gong Ting uu ku guulaystay inuu jabiyo maamulaha gebi ahaanba keligiis. Waxay qiratay in awooddiisu ay tahay mid cajiib ah agteeda. Ivan wuxuu u diray awra cagaaran oo daaweyn ah gacanta dhaawacan ee Sato, isagoo weydiinaya haddii uu soo kaysanayo. Isagoo dhididsan, Sato wuxuu muujiyey mahadnaqiisa. Si kastaba ha ahaatee, raaxadiisu waxay baabaday markii uu eegay saacadiisa. Wuxuu ku wargeliyey kuwa kale argagax in qalabkiisu uu waayay calaamaddii. Yasmin iyo Ivan waxay markiiba eegeen qalabkooda, iyadoo Yasmin ay xaqiijisay in xiriirkeedu gebi ahaanba uu go'ay. Si kedis ah, wuxushkii madaxa la'aanta ahaa ayaa dib u istaagay, wuxuuna si kedis ah ugu soo booday Gong Ting oo naxsan. Jen ayaa isla markiiba soo dhex galay, isagoo soo daayay hilaac dahabi ah oo wuxushkii u kala jaray qaybo yaryar. Nidaamku wuxuu xaqiijiyey dilka, isagoo Jen siiyey dhibco khibrad ah. Isagoo weli la yaaban, Gong Ting wuxuu dalbaday inuu ogaado sida wuxushku u sii socday kadib markii uu madaxa ka jaray. Jen wuxuu si degan u sharaxay in cayayaanku uusan keligiis ahayn maamulaha dhabta ah, laakiin uu hibnotisad ka ahaa dhammaan wakhtiga. Wuxuu si degdeg ah ugu amray imtixaan qaadayaasha iyo Gong Ting inay ka baxaan godka maadaama mid ka mid ah uu noqon karo bartilmaameedka xiga. Gong Ting ayaa weydiiyey sida uu Jen ku ogaaday taas, halka Sato uu si cadho leh Jen uga dhigay mid waalan ka hor inta uusan Jen sii ruxin. Nidaamkiisa ayaa si degdeg ah ugu boynayay digniino halis ah. Mawjad weyn oo awood psiki ah ayaa dhex martay godka. Indhaha Yasmin, Ivan iyo Sato waxay bilowdeen inay ku dhalaalaan ilays casaan cabsi leh xilli hibnosiska maamulaha dhabta ah uu si buuxda u lahaaday maankooda. Jen wuxuu ogaaday in digniintii ay goor dambe ahayd. Nafiisa intii hore wuxuu marhaati ka ahaa boqorka shaydaanka oo adeegsanaya mawjadan si uu u hibnotisa gareeyo malaayiin aadanaha ah. Isagoo gartay in maamulaha dhabta ah uu si toos ah uga tirsan yahay boqorka shaydaanka cadhada, Jen wuxuu si qabow u go'aansaday inuu si toos ah u wajaho makhluuqa, isagoo ka soo dabamaraya kormeerayaashii hibnotisadka ahaa oo u sii socda moolka hoose ee godka madow. Gudaha godka madow, wuxushkii weynaa wuxuu ku wareegsanaa buul ka kooban abeesooyin waaweyn iyo ukumo cagaar dhalaalaya oo ay ka buuxaan makhluuqaad. Jen haba yaraatee ma saamaynin awoodda maanka lahaata ee wuxushka, maadaama uu si gaar ah xagga dhegaha ugu sii diyaarstay hirar cod ah oo ka hortegaya hibnosiska boqorka shaydaanka ee cadhada. Isagoo ogaaday in imtixaan qaadayaashu ay dhiman karaan ilbiriqsi kasta, Jen wuxuu go'aansaday inuu si degdeg ah u dilo maamulaha rasmiga ah.
makhluuqaadkii cabsida lahaa ayaa dareemay imaatinkooda isagoo codkiisu ka yeeray godka dhexdiisa wuxuuna ku dhawaaqay inuu u baahan yahay kooda cusub. Jen wuxuu u eegay si qabow isagoo u diyaar ah dagaal. Xilligaas waxaa dib loo soo xusuustay sannado ka hor iyadoo Gong Ting oo dhiig leeyihiin uu ka taagan yahay walaalkiis Gong Qing kadib markii uu si daran u garaacay isagoo adeegsanaya qoryo jabay. Isagoo daawanaya meeshan dadnimada ka baxsan, aabahood Gong Lin wuxuu si qabow uga hambalyeeyey Gong Ting oo markaas 8 jir ahaa guushiisa. Isagoo fadhiya miiska cunooyinka ee qaaliga ah, Gong Lin wuxuu u sharaxay xeerarka adag ee qoyska. Wuxuu u sheegay in kan guulaysta uu leeyahay xaqa uu ku cuno, halka kan laga guulaystay uu ku qasban yahay inuu jilbo joogsado dhulka ilaa qoraxdu ka soo baxdo. Isagoo dibadda ku haray, walaalkiis oo babaaqsan ayaa jilbo joogsaday isagoo calooshiisu ka qaylinayso dhibka baahida darteed. Gong Ting wuxuu si dhuumasho ah ugu soo dhowaaday walaalkiis isagoo siiyey gabal kibis ah. Isagoo ka cabsanaya in aabahood uu helo, Gong Qing wuxuu ugu baaqay inuu ka fowdo, laakiin Gong Ting wuxuu u sheegay inuu awso oo uu cuno. Si kastaba ha ahaatee, naxariistii Gong Ting si degdeg ah ayaa loo helay. Wuxuu kala kulmay dharbaaxo daran iyo in dhulka la dhigo iyadoo aabahood uu jajabinayo ul culus. Isagoo ka taagan wiilkiisa garaacan, Gong Lin wuxuu weydiiyey sababta qoyska Gong uu u leeyahay awoodda iyo maqaamka weyn. Wuxuu si kibir leh u sheegay intaasi ay tahay sababtoo ah weligiis ma guuldaraysan dagaal. Wuxuu maankiisa ku shubay wiilkiisa in kan guulaysta uu sameeyo xeerarka, halka kan laga guulaystay loo qasbo inuu u kuubiyo. Sannado kadib, Gong Ting oo si daran loo garaacay ayaa ku dhacay dhulka. Wuxuu si cadho leh u weydiiyey aabahood sababta uu u diyaday dagaal xaq ah, wuxuuna u amray Silas Lin inuu soo dhex galo si uu weeraro. Gong Lin wuxuu u sharaxay in awoodda dhabta ah ay tahay taas oo uu ku xukumayo kuwa kale, wuxuuna u sheegay in guushu ay tahay waxa keliya oo loo ogol yahay inuu ku fiifo. Ereyadaas adag waxay si permanent ah ugu dhaceen maanka Gong Ting iyagoo ku beeray in noolaanshihiisu uu ku xiran yahay guusha. Dib loogu soo laaday wakhtiga hadda, kooxdu waxay taagan tahay horteeda maamulaha rasmiga ah oo ay ku hareeraysan yihiin abeesooyin waaweyn iyo ukumo cagaaran. Jen gebi ahaanba ma saamaynin magaca wuxushka maadaama uu u diyaarso xagga dhegaha. Isagoo filaya inuu la kulmo boqorka shaydaanka ee cadhada, wuxuu go'aansaday inuu dilo wuxushka. Ka hor inta uusan weerarin, Gong Ting ayaa si kedis ah u qabtay curcurkiisa isagoo si quus ah uga codsaday inuu joojiyo. Si uu uga tuso hibnosiska wuxushka, Gong Ting wuxuu farahiisa si adag ugu riixay nabarkiisa laabta, isagoo dhiig cusub ku daadiyey dhulka. Isagoo si culus u neefsanaya, wuxuu u sharaxay in dhaawacidda naftiisa ay tahay habka keliya oo uu maankiisa ku siin karo hubaal. Gong Ting wuxuu uga digay Jen in weerar degdeg ah uu ka shifayo goobtooda, wuxuuna sababi doonaa in dhammaan la dilo. Isagoo aad u dhididsan, wuxuu tilmaamay ukumaha cagaaran ee ku hareeraysan carshiga wuxushka, isagoo u sharaxay in haddii ay kiciyaan buulka, ay soo weerari doonaan tuganayaal badan oo wuxuush ah. Gong Ting wuxuu soo weyblan cusub, waa inay joogaan si degan, marka wuxushu uu soo dhowaado, ay si kedis ah u weeraraan oo ay wadajir u dilaan. Jen wuxuu la yaabay maanka furan ee Gong Ting, laakiin gebi ahaanba wuu khilaafay blanka. Jen wuxuu uga digay Gong Ting in sugayntu aysan shaqaynayn maadaama wuxushkani uusan u baahnayn inuu u soo dhowaado si uu u dilo. Wuxuu sharaxay in ilbiriqsi gudaheeda uu ku qasbi karo kuwa hibnotisadka ah inay naftooda ka gooyaan. Isla mar ahaantaana, imtixaan qaadayaashii hibnotisadka ahaa waxay bilowdeen inay naftooda dhaawacaan. Sato wuxuu soo saaray seef, Yasmin waxay khaanadeeda u soo droostay madaxdeeda, Ivanna wuxuu bilaabay inuu naftiisa strangulate gareeyo. Isagoo ficil degdeg ah samaynaya, Jen wuxuu adeegsaday xawaarahiisa hilaaca si uu u garaaco 3 imtixaan qaade, isagoo miyirka ka xiray ka hor inta aysan naftooda ka goynin. Dhaqdhaqaaqa degdega ah wuxuu soo jiitay dareenka maamulaha. Isagoo gartay in saaxiibadiis ay dagaalamayaan, wuxushkii wuxuu si cadho leh u dhawaaqay in cuntadiisa la kharibay. Isagoo ka jawaabayay khatarta, wuxushu wuxuu kiciyey ukumaha cagaaran, taas oo keentay inay si xooggan u dilaacaan. Tobaaneeyo cayayaan ah oo af badan ayaa ka soo booday ukumaha xilli wuxushku uu ku amray inay dilaan soo galootiga. Gong Ting wuxuu ogaaday in howlgalkoodii dhuumashada ahaa uu baabay, wuxuuna go'aansaday inay tahay wakhtigii loo gudbi lahaa qorshaha labaad ee degdega ah. Isagoo seefiisa la soo baxay, wuxuu si adag u hor istaagay imtixaan qaadayaashii miyirka la'aanta ahaa. Wuxuu Jen ugu amray inuu qaado 3 qof ee waaweyn oo uu ka baxo godka, isagoo u ballan qaaday inuu keligiis ka hortagi doono oo uu dib u dhigi doono weerarka wuxushtan. Jen si buuxda ayay uga lahayd go'aanka bilaa khibrada ah ee Gong Ting u qaatay inuu naftiisa u huro badbaadadooda. Gong Ting wuxuu qirtay inuu og yahay inuusan keligiis ka guulaysan karin dhammaan wuxuushkan heerka sii rank ah. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu si adag u sheegay inuu ugu dambayn Jen u siin karo wakhti ku filan oo uu ku cararo isaga iyo kuwa kale. Isagoo seeftiisa gubaysa uga hortagaya wuxushkii soo weeraray, Gong Ting wuxuu ku dhawaaqay inuu qaadaya maqaamka mas'uuliyadda. Wuxuu naftiisa ku eedeeyey inuu daandaansaday dagaalka go'aaminta ahaa, wuxuuna dhammaan dadka soo jiiday dabinkan halista ah. Awoodda baan ee weerarka wuxushka ayaa ka xoog batay Gong Ting iyadoo si fudud dhulka ugu tuurtay.
isagoo seeftiisa dhulka ku cufaya si uu u joojiyo dharbaaxada. Gong Ting oo si culus u neefsanaya ayaa si adag u istaagaya maadaama xaaladdu ay tahay khalkhal uu isagu sababay. Waa inuu noqdaa kan xalliya. Jen ayaa dibadda u soo baxay. asxaabta, halkan ayuu ku eeg yahay muuqaalkeena marka maanta kala baxa Team Colorist iyo Team The Gulton. marka subscribe-na inoo saara subscribe teeni hoos ayay u dhacdee wad mahadsantihiin.